Wararka laga helay gobolka Sool ayaa sheegaya in maanta mar kale ay dibadbaxyo dib uga bilowdeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi kuwaas oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa guud ee magaaladaasi. Dibadbaxyadan ayaa ah kuwo ballaaran waxaa looga soo horjeedaa dilalka qorsheysan ee muddooyinkii dambe ka dhacayay magaalada Laascaanood iyo weliba madaxda hay'adaha amniga oo ku fashilmay wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi. Sidoo kale waxaa xiran goobaha ganacsiga kadib markii ay iyaguna shaqo joojin sameeyeen ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi oo dhaca waqooyiga Soomaaliya. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa Somaliland ka dalbaday in ay ka hortagto dadka dilalka u geysanaya haldoorka gobolka Sool, ayaga oo si weyn u dhaliilay hay'adaha amniga ee ku shaqada leh amniga magaaladaasi Laascaanood. Dhinaca kale, laamaha ammaanka ayaa isku dayay in ay ka hortagaan mudaharaadyada shacabka waxaana ciidamada la dhigay bartamaha magaalada, inkastoo ciidamadu ay la kulmeen dhaleecayn xooggan kadib khasaare ka dhashay rasaas ay shalay adeegsadeen. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdulaahi Cali Xirsi Timacade ayaa dhankiisa si adag uga hadlay xiisadda ka taagan Laascaanood, isaga oo wax ka socda halkaasi ku tilmaamay inay yihiin xasuuq ay geysanayso Somaliland. Waxaan aad u cambaareynaa xasuuqa muddada dheer oo maamulka Somaliland ku hayo dadka shacabka ah ee reer Laascaanood, ayuu yiri Senator Timacade. Si kastaba ha ahaatee, dibadbaxyadan oo si weyn looga dareemayo Laascaanood ayaa intii ay socdeen waxa ay saameyn ku yeesheen isku socodka dadka iyo goobaha ganacsiga ah ee magaaladaasi Laascaanood.